Soomaaliya والله haduu hadal waxtaraayo waayee la hadlay culumaa hadashay cid walbo oo hadli karto hore way u hadashay qurbaha faa'iidada aan ku heesano aad u balaaran tahay nabadgelyo ku heesanaa ma sha Allah wal sajeedin hada qurbaha jawigan uu leeyahay waa jawi degan cabsi ma jirto cidlo ma jirto colaad ma jirto gaajo iyo dib ma jiro qof walba guriyahaas waaweyn ya qof iska leh qof walba gurigiisa ku xareysan yahay everything u baahan yahay u taalo ma sha Allah sajeedinba guriyahaas qof ilaa degan guriya inta la eego bininkooda nafis ay ku heestaan irtaaxa ku heestaan anagana sidoo kale inta ku dhaxnoolnahay sidaas oo kale ku heesanaa irtaax nabadgelyo nafis nolol caafimaad inta waa ku heesanaa laakiin intaas ma aha nolosha waxa ka badan qurbaha anagu intaas aan ku heesano wanaag ah waxa aan ku qasaarayna ka badan oo ah in ilmihii aad dhashay aadan ogeyn mustaqbalkiisa iyo halka ku dambeeynayo aakhiradiisa diintiisa waxaasoo dhan iska daayay inuu xataa qofka uu ilaahay u uumay inuu ahaado markuu dhalanayo uu sii ahaan doono ma ogid go'aankeedana ma lihid waxa hadalkan maanta iga keenay qisa aad u xanuun badan uu sheekha soo geliyay Mareykan joogo qisada waa idin la wadaagi doonaa ninka sheekha wuxuu leeyahay hooyo Mareykanka deganaa waxay haysatay wiilkeed yar iyo macalinkiisa wuxuu u baranayay iskool u dhiganay wiilka iyo macalinkiisa xiriirkoodii bay hooyadii dhibsatay ama aysan u bogin oo xiriir qaldan u la ekaaday way dacwootay oo waxay dhahday wiilkeyga iyo macalinka xiriirka ka dhaxeeyo aniga ma jeclaysan kadib waxaa lagu dhahay yiri sheekha hooyadii cid u dacwootay waxay dhaheen macalinkan wiilku caawiya dadkaana dad wanaagsan oo waay dhib isku ma qabaan dad isku fiican waa dhib isku ma qabaan hawshooda ka bax hooyadii la dhahaa kulay Joyce kala meesan lahayn ilmaheed inay meesha ka wadatay inay cararto kulay wadanta u saamixi weysay saa qiyaasayo ayadoo xaslan aragtay mees iska sii joogteen kadib cunugii markuu noqday da'da 18 oo asaga doorashada leeyahay si dadkan dhahan wuu guuray macalinkii la degay eray xanuun badan oo sheekh isticmaalay wuxuu dhahay wiilkii hooyadaas dhashay maanta wuxuu xaas u yahay asagoo wiil yar u baxo hadda soo baxay macalinkii buu xaas u yahay oo naaka dhigto oo guriga u jooga subhanallah xasbi Allah bal qiyaas xanuunka ee hooyadaas maanta dareemayso ilaahay subxaanahu wa ta'aala wiilkeeda yar ha u soo hadeeyo qalbiga ha u qaboojiyo laakiin faa'iidada uu leeyahay dhulkaas macaan ee u jeedid ee qaboobo ee jawigiis degan yahay ee wax walba wanaagsan aan ku heesano waxa ka xanuun badan wallahi qasaarada uu leeyahay maanta hooyadaas daaraha ugu waaweyn adduunka hadii la siiyo qalbigeeda ku qaboobaya may ku qaboobayso xanuunka wiilkeedii boqolowga ahaa ee ka sabreen weligeed Allah inta nooshahay ilaahay rabbiga ha u saamaxa u soo hanuuni wiilkeeda laabtan ha u qaboojiyo anagoo saas xaalkeenaya weli waxa u dhiiranahay oo u dagaalameena u qeelinayna qabyaalad iyo wixii qaxooti naga dhigay xaaladahan aan shaqada ku lahayn dhaxda naga soo istaajiyay ilaahay anaga dhan hana wada hadeeyo qisadii waatana ila dhageysta wiil adigu aad dhashay oo dugsi dhexe ku dhigta oo macalinkii u dhigay cadaanka ahaa uu yahay qoomuluud oo uu ka waran maalba shukaansado oo markii laga shakiyay in badan laga shakiyay cunuguna uu in badan isqariyay oo aamusay laanu barnaamijka baasaa ku shubta markuu yaqaan gaari ka waradu wiilkii macalinkii u guuro macalinkii la degay qisadaas halkan ka dhacday Brownsville Minnesota dhammaan state-kan districtdii iyo county-dii ku yaala waxa la approve gareeyay in iskuulada loogu dhigo ama ay normal tahay in uu ninka uu guursan karayo saas darteed baa waxa qisa idin haya hooyo Soomaaliyeed
oo cunugeedii macallinkii u dhigayay iskuulka u dhigayay ay dhowr jeer ka shakisay cunuga dhowr 10 jir ah 14 jir 16 jir ah ay dhowr jeer ka shakisay ilaa markii dambe ay dacwada ninkan ka haro salir wuu caawiya xisaab ku caawiya email u soo diraa waa macallin fiican muddo markii laga soo wareegay cunugii high school gaarayne cunugii oo 17 jir ah ayaa macallinkii u guuray oo macallinkii la dagay caawana macallinkii baa qaba waxaas waxa qurbaha lagu hayo waa in dhuxumada waxa qurbaha lagu hayo ciyaalkeena aad dhasheen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu idin weydiin doonaa uu idin odhan doonaa arsaaqada anaa idinka kafaalo qaaday ee maxaad caqiidadiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisa u ilaalin weydaan meel walba aad joogto ilaahay baa kugu arsaaqaya laakiin dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada iyo caqiidadaada iyo islamnimada walaalkayga qaaliga ah ha ka labanlabayn insha allahu tacaala ciyaalkeena ku dadaala meelaha ay dhiganayaana ka warhaya insha allahu tacaala waa soomaalida qurbaha joogta asalaamu calaykum waraxmatullahi